Sawirkan idiin muuqda waxaa qaaday Joe Rosenthal, kaasoo ahaa sawir-qaade u shaqaynayay wakaaladda wararka ee Associated Press. Waxaa la qaaday 23 Febraayo sanadkii 1945, waana sawirka ugu muhiimsan uguna caansan guud ahaan taariikhda Mareykanka. 6 askari oo ka tirsanaa ciidamada badda Mareykanka ayaa calanka Mareykanka waxay ka dul taagayaan fikta ugu sarreysa ee buurta Suribaji ee jasiiradda Iwo Jima ee dalka جزيرة إيوا جيما في طريقها التي تعتبر خط الدفاع الياباني. telefishinada iyo dhammaan warbaahintii xilligaas jirtay. Sawirkan shacabkii Mareykanka ee xilligaas wuxuu ku qanciyay in Mareykanka uu ku guuleystay dagaalka. Sababtoo ah xilligaas waxay ahayd markii ugu horreysay ee calan Mareykanka uu leeyahay laga taago dhulka Japan. Sawirkan dhaxalgalka noqday waxaa ku qarsoon ama ku duugan qiso la yaab leh. Waxaa ku duugan beentii ugu weyneed ee soo martay taariikhda militariga Mareykanka, waana dagaalkii ka dhacay jasiiradda Iwo Jima ee Japan. Kusoo dhawaada warbixintan xiisaha leh. Magacaygu waa Bashiir Cadow. Sida aan horey idinkugu ballan qaadnay, bartaan waxaan inta badan kusoo gudbin doonaa warbixinada la xiriira taariikhdii la soo dhaafay. Sidoo kale waxaan idinkugu soo gudbin doonaa warbixinada aad naga soo codsataan ee la xiriira dhanka taariikhaha. Haddaba warbixintan waxaan diiradda ku saari doonaa hadduu ala yiraa taariikhda dagaalkii Iwo Jima, kaasoo ay hadda ka soo wareegtay in ka badan 80 sano. Dagaalkan ayaa qayb ka qaatay guushii weyneed ee ay ciidamada Mareykanka ka soo hoyeen dagaalkii labaad ee adduunka. Sidoo kale xalaqadan waxaan ku lafaguri doonaa taariikhda dhabta ah ee dagaalkaas, si aad u barataan macallin la'aan sidee ayaad ugu guuleysan kartaa ciidamo kor u dhaafaya 100,000 adigoo adeegsanaya sawir kaliya, isla markaasna jamhuurka caalamka ku qancinaya inaad xaqiijisay guul aad u weyn. balse ka hor inta aan u gudagalin faahfaahinta warbixinta, si warbixintan meel fog ay u gaarto, like saar muuqaalka. sidoo kale haddii aad ka mid tahay asxaabta ugu cusub kusoo biir وصل في نهاية صيف 1944 إلى احتلال جزر ماريانا. qisadu waxay ka bilaabanaysaa in Mareykanku uu xilligaas haystay diyaaradaha dagaalka gaar ahaan nuuca B-29 ee fuliya duqeymaha istiraatiijiga. shaki la'aan waxay ahayd diyaaradii ugu weyneed ee dagaal intii uu socday dagaalkii labaad ee dunida. waxay ku duuleysay joog ka sarreeya dhammaan diyaaradihii la jiilka ahaa xilligaas. sidoo kale waxay lahayd xawaare aad u sarreeya, waxayna saacaddii goon jirtay 640 kilomitir. waxay kaloo awood u lahayd inay qaado tan aad u badan oo isugu jira bambooyin iyo gantaalo. Mareykanku diyaaradahan wuxuu u adeegsan jiray saldhigyada militari ee uu ku lahaa jasiiradaha Guam iyo Saipan, iyadoo hadafkuna ahaa inuu ku duqeeyo dalka Japan, gaar ahaan caasimadda Tokyo. jasiiradaha labada ah ee aan kor ku soo xusnay waxay caasimadda Japan ee Tokyo masaafo ahaan u jirtay 2,500 oo kilomitir. diyaaradda B-29 masaafada ay jari karto wuxuu u saamaxayay inay soo duqeyso Tokyo kana soo laabato, balse mushkiladu waxay ka taagneyd in diyaaraddan B-29 mar walba oo ay doonayso in ay duqeymo ka soo fuliso Tokyo, waxaa sii wehelinayay diyaaradaha dagaalka ee kale si ay ugu ilaaliyaan diyaaradaha dagaalka ee Japan. masaafada u dhexeyso Tokyo iyo Guam ayay u dheereyd, sida B-29 oo kalena masaafo aad u dheer ma jiri karin diyaaradaha kale. mar walbana waxay u baahnaayeen in ay hawada ka sii qaataan shidaal. sababtaas darteed Mareykanku waxay ka xarimaysay in uu wada duqeeyo dhammaan magaalooyinka Japan, isla markaasna uu rucbi ku rido ama walwal shacabka Japan. 2 sano ee u dambeysay dagaalkii labaad ee adduunka, siyaasadaha Mareykanku isticmaalayay waxaa ka mid ahaa in uu si aan kala soc lahayn u duqeeyo magaalooyinka ay ku badan yihiin dadka rayidka ah. si gaar ah wuxuu kaartadan ugu isticmaalay Jarmalka iyo Japan. taliskii ciidamada Mareykanka waxay xalka ugu wanaagsan u arkeen in ay qabsadaan jasiiradda Iwo Jima ee Japan. jasiiraddan ayaa badka ay ku fadhiso wuxuu yahay 20,000 oo kilomitir oo laba jibaaran, waxayna kala bartaa jidka u dhexeeya jasiiradda Guam iyo Japan. haddaba maxay tahay ahmiyadda ay jasiiradda Iwo Jima u lahayd ciidamada Mareykanka? jasiiradda Iwo Jima waxaa yaalay khadka difaaca koowaad ee ciidamada Japan ay ka difaacayeen Japan inteeda kale, waxaana ku yiilay 3 garoon oo diyaaradeed oo markii dambe ay burburiyeen diyaaradaha dagaalka Mareykanka. dhanka kale, diyaaradaha dagaalka Japan ayaa iyagana weerar rogaal celis ah oo argoosi ah waxay ku qaadayeen fariisimaha ciidamada Mareykanka ee jasiiradda Saipan.
genaraal henry harley arnold taliyihii ciidamada cirka maraykanka wuxuu qabay kuna kalsoonaa in duqeymaha diyaaradaha B-29 ay jabaan ku qasbi karto in uu isdhiibo. riyada ugu weyn ee maraykanku lahaa xilligaas waxay ahayd in jabaan isdhiibto, weliba isku dhiibto duqeymaha istaraatiijiga ah ee diyaaradaha B-29 iyadoo aan loo baahan ciidamada badda ee maraykanka iyo kuwa dhulka. genaraal henry sidoo kale wuxuu taliska ciidamada mariiniska ku qanciyey inay laga maarmaan tahay inay qabtaan jasiiradda Iwo Jima si garoomada diyaaradaha ee jasiiradan uu ugu isticmaalo saldhig ay ka duulaan diyaaradaha B-29 ee la doonayay in ay duqeymo habeen iyo maalin ah ka fuliyaan dhammaan magaalooyinka Jabaan si loogu qasbo Jabaan in ay isdhiibto. haddaba duulaanka maraykanka ee jasiiradda Iwo Jima wuxuu ka imaanayay laba jiho. midka koowaad wuxuu ka imaanayay dhankaas iyo Australia iyadoo lasoo marayo Philippine. weerarka labaad wuxuu ka imaanayay dhanka badweynta Pacifiga. qaybtanna waxaa hogaaminayay genaraal Chester Nimitz kaasoo dhammaadkii sanadkii 1944 ciidamo uu hogaaminayo ay qabsadeen jasiiradaha Mariana, Guam iyo Saipan iyo Tinian. dhammaan jasiiradahan juqraafi ahaan ma raacsaneen dhulka Jabaan, balse waxay ahaayeen jasiirado ay Jabaan ku qabsadeen dagaalkii koowaad ee adduunka. laakiin Iwo Jima waa jasiirad si rasmi ah uga tirsan dhulka Jabaan. jasiiradda Mariana ciidamada Maraykanka iyo kuwa Jabaan waxaa ku dhex maray dagaal aad u qaraar. ujeedaduna waxay ahayd sidii ay Maraykanka u qabsan lahaayeen Iwo Jima. ku darso jasiiraddan Iwo Jima xilligaas xitaa kuma sugneen hal muwaadin oo Jabaan u dhashay, kaliya waxaa ku sugnaa askarta Jabaan oo diyaar u ahaa inay difaacaan ilaa midka ugu dambeeya uu ka dhimanayo. 13 bishii November 1944 Maraykanka wuxuu weerar dhanka cirka ah ku bilaabay jasiiradda Iwo Jima. 2 bilood oo xiriir ah ayayna socotay duqeynta cirka. 14 bishii Febraayo ee ku xigtay ciidamada oo wata maraakiibta iyo gujisyada ayaa ku soo biiray dagaalka. maraakiibta burburiyaasha ayaa jasiiradda gabi ahaanba ku harqiyey gantaalo iyo rasaas kala duwan. meelaha ay sida ba'an u duqeeyeen waxaa ka mid ahaa garoomada diyaaradaha, dhufiisyada ciidamada Jabaan. sidoo kale ciidamada mariiniska waxay maraakiibta iyo doomaha dagaalka ka dalbadeen in ay si fiican u duqeeyaan xeebaha ka hor inta aysan ka degin halkaas, si ay ciidamada Jabaan ugu qasbaan in ay ka fogaadaan dhulka xeebta si aysan khasaare xoogan uga soo gaarin marka ay degayaan. waxay ka dalbadeen in 10 maalin oo xiriir ah ay duqeeyaan, balse markii diyaaradaha sahanka ay dul mareen jasiiradda waxay arkeen in ayba tahay meel bannaan. dhanka jasiiraddana aysan ciidamo Jabaan ku sugneen, sidaas darteed maraakiibta iyo doomaha ayaa duqeyntooda ku soo koobay 3 maalin oo keliya. maadaama dagaalada aan lagu go'aamin duqeynta oo keliya, saraakiisha Maraykanka ee ciidamada badda waxay ciidamada fareen in ay ka degaan doomaha iyo maraakiibta gudahana u galaan jasiiradda. ciidamadii ugu horreeyey ee jasiiradda lagu daadiyey waxay gaarayeen ilaa 80,000 oo askari, halka ciidamada Jabaan ee ku sugnaa jasiiradda tiradoodu ay ahayd 10,000 oo keliya. sidaas darteed saraakiisha Maraykanku waxay aaminsanaayeen in dagaalku u sahlanaan doono, jasiiraddana ay si sahlan kula wareegi doonaan, weliba wax ka yar 2 maalmood ay ku soo gabagabayn doonaan. waana sababta ay ciidamada Maraykanku horey ugu sii wateen ilaa 50 wariye iyo sawir-qaadayaashii ugu caansanaa Maraykanka si ay u soo tabiyaan guusha ciidamada Maraykanka, sawirana ugu soo qaadaan halkaas. ilaa 500 oo isugu jira dooman iyo maraakiibta waaweyn ayaa ku soo xirtay xeebaha jasiiradda Iwo Jima, waxayna dhammaantood wadeen ciidamada Maraykanka ee la doonayay in ay jasiiradda qabtaan. qaybta koowaad ee la qorsheeyey in ay jasiiradda lagu dejiyo waxay ahaayeen 5,000 oo askari. gaar ahaan saacadaha ugu horreeya ee dejinta, ciidamada Maraykanku waxay aaminsanaayeen in inta ay ka degayaan maraakiibta iyo doomaha ay ciidamada Jabaan ku soo dhoweyn doonaan madaafiic iyo rasaas ka dhacda qoryaha mashiingaanka, balse tan la yaabka noqotay ayaa ahayd in Jabaaneesku aanay sameynin iska caabin la sheegi karo. mariiniska Maraykankuna waxay si dhib yar ku soo gaareen bacaadka xeebta jasiiradda, waxayna si saf ballaaran ah iyagoo kumanaan ah u jiifeen dhulka bacaadka ah. si sahlan oo dhiya ayayna ciidamada Jabaanku u toogan kareen una xasuuqi kareen. wuxuu xaalku sidaas ahaadaba qaybtii labaad oo iyagana gaaraya ilaa 5,000 oo askari ayaa bilaabay inay ka soo degaan doomaha iyo maraakiibta. sidoo kale kooxdii saddexaad ayaa iyagana soo degay. ilaa intaasna Jabaaneesku marnaba ma sameyn wax iska caabin ah ama carqaladeen. dhinaca kale, generaalkii hogaaminayay ciidamada Jabaan ee jasiiradda ku sugnaa, genaraal Tadamiji Korobayashi, wuxuu ka mid ahaa saraakiishii ugu fiicneed dhanka dejinta qorshayaasha iyo kartooyinka militari ee ciidamada Jabaan. wuxuu aqoon fiican u lahaa dabeecadaha Maraykanka, maxaa yeelay wuxuu gudaha Maraykanka ku soo qaatay 2 sano oo tababar ciidan ah.
wuxuu kaloo yaqiinay in maraykanku uu weerar xoogan kusoo qaadi doono jasiiradda. wuxuu kaloo maanka ku hayay in awooddii ciidamada badda ee jabaan la burburiyey. wuxuu kaloo ogaayay in intii badneyd diyaaradaha dagaalka dalkiisa ay dib ugu laabteen gudaha jabaan si ay u difaacaan magaalooyinka muhiimka ah. taasina waxay ka dhignayd in uu ku xisaabtamayey in dagaalka jasiiradda Iwo Jima uusan heli doonin taageerada ciidamada cirka, dhulka iyo badda ee dalkiisa. asiga iyo ciidamadiisana ay ku qasbanaan doonaan in ay dagaalamaan oo wajahaan ciidamada 10,000 ee jeer kusoo labalaabma ee maraykanka ilaa kan ugu dambeeya uu ka dhimanayo. balse jenaraal wuxuu la yimaaday kaarto cajiib ah. waxa uu ciidamadiisa ku amray in ay kuwa maraykanka u ogolaadaan inay si nabdoon ugu soo degaan xeebaha. taas beddelkeedana wuxuu ku amray inay madaaficdooda iyo qoryahooda ay la galaan gudaha buurta Suribaji, taasoo u sahlaysa ciidamada jabaan inay si fudud oo sahlan u toogtaan gantaaladoodana sidii roobka ugu duqayaan ciidamada maraykanka ee xeebaha ka soo degayay. dhinaca kale, degitaanka ciidamada maraykanka ay ka soo degayeen maraakiibta iyo doomaha waxay socotay 30 daqiiqo. ciidamada jabaan ee dhufayska ugu jiray buurta Suribaji waxay sugayeen inta ay iska soo urursanayaan iskuna imaanayaan dhammaantood. kadibna waxay bilaabeen xasuuqii ciidamada maraykanka. ilaa 4,000 oo ka mid ah ciidamada maraykanka ayaa noqday wax dhintay iyo wax dhaawacmay. madaxweynihii maraykanka ee xilligaas Franklin Roosevelt markii uu maqlay tirada ciidamada laga dilay ilin ayaa ka soo daadatay indhihiisa. xeebta ay ka soo degayeen ciidamada maraykanka ee jasiiradda Iwo Jima sida aad sawirkan ka arki kartaan waxaa ku hareereysan oo dusha sare kaga yaal buur lagu magacaabo Suribaji oo dhererkeedu dhan yahay 200 mitir. qiyaas ahaan buurtan waxaa gudaheeda iyo hareeraheeda ay ciidamada jabaan ka samaysteen ilaa 1,000 dhufays. waxayna halkaas ka soo ridayeen qoryaha danadooriga u dhaca ee mashiinganka iyo gantaalada iyagoo la beegsanayay ciidamada maraykanka ee doomaha iyo maraakiibta ka soo degayay. mushkiladda maraykanku uu wajahayay xilligaas waxay ahayd in halkaas ay ku sugnaayeen saxafiyiin sawirqaadayaal aad u badan kuwaasoo baahinayay jabka iyo xasuuqa gaaray ciidamada maraykanka. dhinaca kale, shacabka maraykanka si aad ah ayay ugu caroodeen ugana falceliyeen dhacdadaas. saraakiisha iyo mas-uuliyiinta maraykanka haba yaraatee wax marmarsiyo ah uma haynin sababta ay ciidamadooda ugu dhammaanayaan jasiiraddan cidlada ah. weli ma isweydiisay sababta ay ra'yul caamka maraykanku ay muhiim ugu yihiin dagaalada? wax kale ma ahan. sababtu waa in ciidamada maraykanka dagaal walba ay galaan mushaarka la siiyo, qalabka ay isticmaalaan 40% waa canshuurta laga soo aruuriyo shacabweynaha maraykanka. sidaas darteed shacabku mar walba waxay u baahan yihiin in laga jaahil bixiyo sababta ay ciidamadu ugu dhammaanayaan jasiiraddan aan haba yaraatee waxba aysan ku sugneen. dhinaca kale, markii uu soo baxay warka ku saabsan jabka xoogan ee ciidamada maraykanka soo gaaray waxaa hoos u dhac weyn uu ku yimid suuqa sarifka suuqyada maraykanka. sidoo kale waxaa hoos u dhacay dhaqaalihii maraykanka. dhinaca kale, ciidamada maraykanka ee ka badbaaday xasuuqii ku qabsaday xeebta waxaa dhib ku noqotay in ay gaaraan buurta Suribaji ay ciidamada jabaan dhufayska kaga jireen. maxaa yeelay ciidamada jabaaneesku waxay rasaas ka soo ridayeen 100 dhufays oo ku yaal buurta. sidoo kale buurta hoosteeda waxaa ugu yeelay godad aad u waaweyn oo ay ku kaydsadeen rasaasta, raashinka, daawada iyo wax walba ay u baahnaayeen, taasoo ka dhigan inaysan ciidamada maraykanku si sahlan ku gaari karin buurta. balse si tartiib ah ayay ciidamadii maraykanka u koreen buurta. talaab walba ay qaadaanna waxaa ugu dhimanayay 10,000 oo askari. ka waran haddii aan ku dhaho 5 maalin oo xiriir ah ciidamada maraykanku waxay ku qaadatay in ay horay u socdaan 200 oo mitir oo keliya, balse ugu dambeyntii waxay gaareen fikta sare ee buurta. isla markii ay koreen waxay halkaas ka taageen calanka maraykanka. ujeeddaduna waa brobagando oo keliya. waxay iskaga qaadeen sawirka xasuusta galay ee aan ka hadlayno. laakiin calanka koowaad ee ay halkaas sureen waxa uu ahaa mid aad u yar. waxayna dareemeen inuusan ku filneen dacaayadda ay doonayeen in ay ka gadaan adduun weynaha iyo shacabka maraykanka. maalinkii xigtay 6 ka mid ah ciidamada mariiniska maraykanka ayaa waxay soo qaateen calan aad u weyn, waxayna iskaga qaadeen sawir iyagoo suraya fikta sare ee buurta Suribaji, weliba qaab ay ka buuxdo daraamo aad u sarreysa. waxaana sawirkan ka qaaday sawirqaadaha Joe Rosenthal, kaasoo sida aan soo sheegnay u shaqaynayay wakaaladda wararka ee Associated Press. halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa qaybta koowaad. la soco qaybta labaad insha Allah.